Salaan sare dhammaantiin. Magacaygu waa Liibaan Cali Xirsi. Ku soo dhawaada taxanaheennaan gaaban oo ku saabsan taariikhda qoraalka af Soomaaliga, ama si kale haddii loo dhigo taariikhda far Soomaaliga. Ujeeddada barnaamijkani waa sidii bulshaweynta Soomaaliyeed loola wadaagi lahaa waayadii ee cilmi-baarista af Soomaaligu soo martay, si loo fahmo heerka af Soomaaliga qoran maraayo iyo weliba qaabkii loo sii horumarin lahaa. Inkastoo baaritaanada cilmi ahaaneed ee af Soomaaligu ay soo jireen ilaa iyo qarnigii 19aad, haddana inuu af Soomaaligu far lagu qoro yeesho waxay suuro gashay bilowgii 70aadkii. Halkaas waxaa laga arki karaa in baaritaanka cilmi afeed ee af Soomaaligu uu muddo dheer soo jiray, isla markaasna aqoonta loo leeyahay naxwaha af Soomaaliguna ay marba marka ka dambaysa soo kordhaysay. Balse xaqiiqada jirta ayaa ah in aqoonta naxwaha af Soomaaligu ay badanaa aqoon-yahanada oo keliya ku koobnaan jirtay, oo xataa waxaan oran karnaa ilaa iyo maantadan la joogaba weli way ku kooban tahay. Haddaba taxanayaasheennan kooban waxaan ku soo bandhigi doonaa marxaladihii kala duwanaa ee taariikhda far Soomaaligu soo martay. Taariikhdaas waxay ku salaysnaan doontaa cadeymo badankoodu qoraallo cilmiyeedyo yihiin, isla markaasna muuqaal walba waxaa ku lifaaqnaan doona qoraal cilmiyeedyadaas oo PDF ah iyo halka laga heli karo ama laga soo degsan karo. Hadafka ama hadafyada laga leeyahay taxanahan haddaan mid iyo laba ka tilmaano. Qodobka koowaad ee hadafkeenu waa sidii ummadda Soomaaliyeed loola wadaagi lahaa macluumaad caddeynaya in cilmi-baarista af Soomaaligu ay soo jirtay in ka badan 140 sannadood welina ay socoto. Qodobka labaad waa in cilmi-baarista af Soomaaliga ee cilmi afeedka ku salaysan loo soo gudbiyo qaab fudud oo qof walba ku fahmi karo. Qodobka saddexaad waa baraarujinta ardayda kulliyadaha luqadaha dhigata iyo sidii ay u heli lahaayeen cilmi-baarista af Soomaaliga. Sidoo kale marna kama maqna ardayda dugsiyada sare iyo qof walba ama cid walba oo danaynaysa inay barato ama fahamto qaabka cilmi afeed ahaaneed ee afkooda hooyo uu u shaqeeyo. Qodobka afaraadna waa sidii Soomaalida iyo dadka kale ee af Soomaaliga xiiseeyaba aan ugu baraarujin lahayn tayeynta iyo xafididda afkan hodanka ah ee eebbe geeska Afrika ku manaystay. Hagaag qaybteennan koowaad ciwaankeedu waa fartii waayadii dhexe. Waayadii dhexe iyo muddooyinkii ka dambeeyeyba luqadda iyo farta ugu muhiimsan ee wax looga qoro geyga Soomaaliyeed ama dhulka af Soomaaliga looga hadlo waxay ahayd farta Carabiga. Maadaama af Carabigu yahay luqadda diinta Islaamka, Soomaalidu waayadaas akhriska iyo qoristaba waxay ku baran jireen af Carabiga. Sababtaas awgeed bay dabiici isaga ahayd in af Carabiga wax lagu qoro. Tusaale ahaan dukumentiyada kala duwan ama waraaqaha rasmiga ah, sidoo kale qoraalada lagu diiwaangeliyo taariikhaha iyo dhacdooyin kala duwan, iyaguna af Carabi bay ku qornaan jireen. Allah u naxariistee Awjaamac Cumar Ciise oo arrinkan aan ka hadlayno xogogaalnimadiisa ku iftiiminayana wuxuu yidhi: waayadii horeeto sidaynu ka warhayno waxaa wax lagu qoran jiray afkan Carabiga. nin Carabi ku qora Carabi gaar ah iyo nin fartoo Carabiya afkuna uu Soomaali yahay ku qorta. taasuna waxay la socotay markii Islaamku uu dhulka soo galay. far kaleeto oo dhulkeenna soo gashay oo meel kale ka timi nooc kasta ha ahaatee odayna ma werin dhegna kuma maqal. farta Carabiga ayaa arrada u xoog badnayd u haysatay. wadaadadu masafooyinka ayay ku qoran jireen. ninkii gabay qoraana gabaga dadkaas qori yaqaan buu u tegi jiray, wuxuu oran jiray gabagaasaan tiriyey halay qoro. haddii farta Carabiga lagu qoro dee meel lagu kaydii ma leho, waxay haddee u dhowdahay inuu iska lumaa. horta fartaasu qarniyo badan bay soo martay sidaynu ka warqabno. intii Islaamku soo baxay ama reer Soomaaliya jirayna afkan Soomaaliguna waa jiray, farta Carabigana waa la socotay. waxaad ka garanaysaa kutubtii farguriga ahayd ee tirada badnayd ee la qoray. hal buug baa ninka soo iibsan jiray ama Baghdad ama Maka ama Madiina. buuggaa markii Soomaaliya la keeno nin far wanaagsan ayaa guurin jiray, ama qaalin ama laba ayuu ku qaadan jiray. arrin waddanka oo dhan ku
ku fidsan ayay ahayd waqooyi iyo koonfur bari iyo galbeed. tusaale arrinkaas oo jaamac cumar ciise ka hadlay caddayn u noqon kara waxaan u soo xigin karnaa qoraal cilmiyeedka magaciisu yahay ama la yiraahdo scrittura di Giorgio Banti oo uu 1988 diyaariyey Giorgio Banti oo ah aqoonyahan cilmi afeed oo af Soomaaliga muddo dheer ka soo shaqeeyay. waa hagaag sida halkan nooga muuqataba Banti wuxuu qoraalkiisa ku sheegay in masaajidkan jaamaca Xamarweyne ee Muqdisho ku yaala ee munaaradiisa uu ku yaalo qoraal sheegaya taariikhda la dhisay. qoraalkan darbiga ku yaala wuxuu ka mid yahay qoraalada ugu taariikhda fog inta la ogyahay sababtoo ah qoraalka waxaa ku cad taariikhdii howshaas dhismaha masaajidka la fuliyey. taariikhdaas waxaa laga dhex heli karaa labada sadar ee qoraalka ugu horeeya taasoo noqonaysa 1 Muharram 636 taariikhda islaamka waxayna u dhigmaysaa 14 Agoosto ama 14 bishii 8 1238 waxaan oran karnaa in dhismaha masaajidkan laga joogo ilaa iyo 800 sano oo dhow. Banti wuxuu isla qoraalkiisaas uga hadlay nidaamkii ay Soomaalidu alifbaada Carabiga ugu adeegsan jireen qoritaanka af Soomaaliga. mid ka mid ah cadeymaha ugu muhiimsan oo halkan hadeertaan nooga wada muuqda oo arrinkan la xiriira waxaa laga heli karaa isla maqaalkan. cadeyntani waxay la xiriirtaa Sheekh Aweys Maxamed oo Sheekh Aweys Albaraawina loo yaqaano. halkan waxaa idinka muuqda qasiido Sheekh Aweys lahaa oo magaceedu yahay Abbay Sitidey oo lahjada ama afka Maayiga lagu meeriyey balse alifbaada Carabiga ku qoran. mar dambe ayaa 7 beyt qasiidada Abbay Sitidey ugu horeeya loo rogay farta Laatiinka. haddaan isku dayno inaan labada sadar ee ugu horeeya akhrino waxay u dhacayaan sidaan: Abbay Sitidey nuurkii Mukhtaar Batuula Nabi iimaanka salaad sakaad xijaa soonkaa sabarkaada Abbay Sitidey. sida tusaalayaashan alifbaada Carabiga iyo tan Laatiinkaba ku qoran laga garan karo asalka qasiidadu ma aha af Carabi ama af kale oo waa Maay oo Soomaali badan afkooda koowaad u ah. jaamac cumar ciise ayaa isagoo ka hadlaya doorkii uu Sheekh Aweys Albaraawi ku lahaa taariikhda far Soomaaliga wuxuu yiri: warqad 1912 uu Sheekh Aweys faafiyey oo xajeeki la yiraahdo xuruuftu waxay ahayd Carabi afkuna wuxuu ahaa Soomaaliga mayga ah xajeeki Italian waa maxay maalin leeydi khamiis xarbiyeen caynkaasi u socotay. nasiib darro qoraaladii af Soomaaliga ahaa ee far Carabiga ku qornaa intooda badan way lumeen. dhan kale markii laga fiiriyo waxaan haysanaa caddayn muujinaysa ama cadeymo muujinaya inay Soomaalidii qarnigii 19aad ay qabeen dareen xoogan oo ku aadan inay afkooda hooyo u yeelaan far lagu qoro. wagaag saaxiibayaal qaybtii koowaad ee taxanaheenan maanta intaas ayay ku eg tahay. qaybta labaad waxaan ku soo qaadan doonaa imaanshihii ay reer Yurub ku yimaadeen qarnigii 19aad geeska Afrika iyo doorkii ay ku lahaayeen taariikhda far Soomaaliga. mahadsanidin dhammaantiin soo nabad ahaada. nabaday.